saara cartan iyo caruurteedii bay wada cadaabeen waxay cunaha gooyeen waa curadadaydii caa'iladii nin laga laayay iyo ciilan baan ahay cadow ma leh ciyaalkii habluhu caan kasto tahay in cadaalad aan waayo iyo cirib jarka reerka gobya caadadeed maaha ee waa cawaanimo ciiltiradii nuuriyo hadii xaawo cidlaysay oo rag caashaqaygii sahrana ciidka hoos mariyay xaajado cakirantaahay waa cibro adduune ma calaayo wallaan ruux la soo celine aniguna cadlan doonayaa caawa dabadeede haddii kalese waa ceeb galmudug ama culayskeede rag cadaalad waaya sidii cawsha kala yaaciye abwaankii cabiray baa ku yiri caynka maansadan waa maansa aan ku cabiray dareenka maanta uu dareemayo aabihii laga dilay xaaskiisii iyo labada gabdhood ee uu dhalay gurigiisana la madoobeeyay labadiisii gabdhood oo nuuro mid la yiraahdo midna xaawo la yiraahdo iyo xaaskiisii zahra ayaa la dilay gurigiisina waa la madoobeeyay waxaana loogu daray in la yiraahdo waa lagu waayay kiiskaadii xaaladaasi waa xaalad cakiran waxa uu dareemi karana waa iska dareemaysan haddaba maxkamadii arintaasi loo xil saaray oo arintaasi gashay waxa ay xukuntay aanu isla dhageysano ma oran karnaa mushkilada ay sii kordhiyeen ee xal ma keenin aragtida waa inoo muhiim bal nala daawo maxkamaddu waxay ku weysay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku heshay qariino mu'akkada ah oo ay ka laasimayso in ay dhaartaan warasada marxuumiintii dhimatay maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah عبدي عثمان عبد الله إن صفية ظاهر وهلية لواتني سدح جرأة كل شيء قدن لبيت دقن عدا كبير قلت أحمد حسين إن صفية عبدي فارح سدح لواتن جرأة كل شيء دقن عدا كبير محكمة مركي أي أركتي قال دعوات كعقابته لمبركيس أوي هاي طبعا لواتن إيشان أين أيدي سناليال كيهين عبدي عثمان عبد الله إن صفية ظاهر وهلية لواتني سدح جرأة كل شيء قدن لبا دقن عدا كبير يا أيوب محمد عبدي إنه هو يستاهل عبد علي لواتني شنجرأة كل شيء عداده دقن عدا كبير صدح قلت أحمد حسين إن سعديو عبد فارح لواتني سدح جرأة كل شيء دقن عدا كبير محكمة مركي أركتي عاشدة آدة حافظ كحريرانت جود أجل مدوك كنا تاريخيسن أبي طبعا كبيش التمناد لو كنا لاتينشن محكمة مركي وآخرسي ونا شرح ذي ونا كنا ورجلسي هذا السنة ياشا أد الله هيسته سوى فقسن قضبك بقول يسدح حير كهبك عقابة الصوماليات فرقة الكوبات حرف كبي إيوه كلوات حرف كأ بي سي كنا يكون جوابين أديسنا ياشو سوى فقسن قضبك بقول يا أفر فرقة كوبات حرفك سي حركة حركة عقابة الصوماليات أو ما ننقلين دنبجاس محكمة مركي أي دقيستي ضد حافظ كحريران تجود جل مدوك يعد دايمها أو سوق بيجي سوى فقسن قضبك بقول طبعا يا أفر بقول يا طبعا بقول لحدا يصدح حيرك حبك عن قابة الصوماليات محكمة مركي أي دقيستي دفاع قرينada eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 110 iyo 6 xeerka habka inkaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwadda si waafaqsan qodobka 119 xeerka habka inkaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay dhinacyada kuna sameysay qiimeyn dhameystiran cadaymihii ay soo gudbiyeen si waafaqsan qodobka 202 xeerka habka inkaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay aragtay aayada 58 ee suuratul nisaa maxkamaddu markii ay aragtay kitaabka majmuucu nawawi juska 20aad boga 283 maxkamaddu markii ay aragtay kitaabka tuhfatul minhaj juska 9aad boga 320 maxkamaddu markii ay aragtay xadiiska saxiix muslim nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam lambarkiisu uu yahay 342 ee kitaabul ahkaam maxkamaddu markii ay u soo jeedisay walidamka ama dadkii dhaxlayay marxuumeynta
ayna diideen in ay dhaartaan ama ay dhaarsadaan eedaysanayaasha. xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud iyadoo oo cuskanaysa asbaabaha sare ku xusan isla markaana raacaysa qodobada kala ah 110 163 181 182 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedaysanayaasha kala ah lambar 1 Cabdi Cismaan Cabdullaahi ina Safiyo Daahir Wehliye 23 jir ah ku dhashay Godin Labe degan Cadakibir Galad Axmed Xuseyn ina Safiyo Cabdi Faarax 23 jir ah ku dhashay degan Cadakibir Ayuub Maxamed Cabdi ina Astaahil Cabdi Cali 25 jir ah ku dhashay Cadaado degan Cadakibir. maxkamaddu waxay ku weysay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku heshay qariino mu'akkada ah oo ay ka laasimayso in ay dhaartaan warasada marxuumiintii dhimatay ayna diideen in ay dhaartaan. sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah Cabdi Cismaan Cabdullaahi ina Safiyo Daahir Wehliye 23 jir ah ku dhashay Godin Labe degan Cadakibir Galad Axmed Xuseyn ina Safiyo Cabdi Faarax 23 jir ah ku dhashay degan Cadakibir tacsiir 5 sano ah oo xabsi ah sida ku cad kitaabka muqniga juska 4 safxada 253. sidoo kale waxay ku xukuntay Ayuub Maxamed Cabdi ina Astaahil Cabdi Cali 25 jir ah ku dhashay Cadaado degan Cadakibir 3 sano oo xabsi tacsiir ah. cidii aan ku qanacsanayn waxa u furan racfaan 30 casho ah. wabillahi tawfiiq.